بسم الله الرحمن الرحيم هذه البني سلامية سيدا رجينيو قدب كتبنات دستوركي انجويد ayaan rajin insha Allah inaan siyar faahfaahiyo qodobka tobnaad oo loo yaqaan article 10 of finance ah hadii barta ka sii socono oo inuu sii wadno hortay finance waxa loo jeedaa ama laga wadaa ururku wuxuu leeyahay dastuurku tusaale ahaan kale waxbuu ka sheegaa dhaqaalaha sida tusaale ahaan kale meesha dhaqaaluhu urur ka soo galayo iyo sanad xisaabeedka marka halka waxaan oranaynaa the financial year balidi yani sanad xisaabeedka ururka TTG leeyahay shall begin from wuxuu ka bilaabmayaa 1 January ilaa 1 December ee sanad walba every year marka ururku xisaabtiisa wuxuu xidhayaa bisha koobaad koodeeda ilaa bisha 12aad koobaad ee sanadkii marka the income of TTG shall be derived from ururka TTG dakhligiisa waxa laga soo miiguurin karaa baa la yidhi meelahan aan xusi doono kow membership subscription fee dadka xubnaha ah ama dadka maxaa la ururka ka tirsan maxaa la yiraahdaa subscription-ka lacagta xubinnimada ay billaah ay bishi bixiyaan iyo contribution from the members isla xubnaha laftigooda iyo cidii kale muxsiniiniba lacagaha kale ku deeqaan ayaa iyaduna soo galaysaa waxa kaloo soo galaya funds provided through agreement with development agencies hay'adaha caalamiga ah oo mashaariic inta laga helo heshiis lala galo taasina waxay u noqonaysaa ururka backup funding ay u noqonaysaa marka waxa la yidhi inta ay xaq hoos ku qodan receiving payment and reporting organizational finance shall be described by TTG financial policy maxaa la yidhahdaa habka lacag bixinta iyo wixii la halmaala iyo report gareynteeda ururku wuxuu leeyahay wuxuu ka yeelanayaa siyaasadda dhaqaalaha ayuu ka yeelanayaa habka lacagta loo tacaamilayo habka loo bixinayo habka cid loo deeminayo habka shaqaalaha loo siinayo habka maxaa la waxa soo dhan waxa jiri doonto oo la sameeyo baa la yidhi financial policy saasga qodobka tobnaad waxa weeyaan property waa hanti ururka hanti buu yeelanayaa dhul buu yeelan karaa gaadiid buu yeelan karaa allahumma salli ala maxamed waxa kale uu yeelan karaa any means dhul buu yeelan karaa lacag bank u taalo yeelan karaa hantidaas oo kale ururka maxaa uga meel yaala waxa isla markaa qodobka the organization ururku shall have the power to acquire to first and or dispose the property ururku hantidiisa tusaale ahaan oo kale magaciisa ku diiwaan gelin karaa cid buu siin karaa ama cid buu u deeqi karaa ama ba cid buu u tabaruci karaa ama cid buu ka iibin karaa any means acquisition of property ururku inuu cid wax ka helo ururku hanti ma gudoomi karaa marka qodobkan tobnaad farqadiisa koobtana waxay leedahay ururku wuxuu xaq u leeyahay to purchase accept lease hire or otherwise to acquire any movable or immovable properties as might be considered ururka hantidiisa wuxuu sameyn karayaa inuu markaa cid ka gudoomo kireeyo ama macneeyo kala oo isticmaali karo qodobka koobtana farqadiisa labaadna waxa weeyaan waa first property hantida ururka maadaama hanti yeelanayo hantida waxa lagu register garanayaa oo lagu diiwaan gelinayaa magaca ururka haddii ururku gaadhi leeyahay buuga gaadhiga magaca ururka lagu soo diiwaan gelinayaa haddii ururku guriga leeyahay asadka guriga waxaas kale ururka lagu qoriyaa cidda boardka ama cidda gudoonka ama cidda meesha maamulaysa iskuma qori karto uguma faa'iideysan karaan means iyaga u gaara kaliya waxa lagu qori karaa ismi of the organization magaca ururka lagu qori karaa taana sahal loo fahmo markaan hantidu haat mid gurgurta ama midaan gurgurinba sida ku cad marka qodobkaasi all the property of the organization either movable or immovable shall be vested and registered in the name of the organization sida aan sheegay markaa disposition of the property ururku hantidiisa inuu codsiyo inuu ka maarmi karo cidba ama iskaba tuuri karaba marka ururku shall sell bali waa iibin karaa ururku xaq buu leeyahay ururku hantidiisa inuu faasaxo laakiin marka la faasaxay macnaheedu waxa lacag inoo guriga inoo iibiyo lacagta inoo kala qaybiyo maaha haddii nidaamka dadka ururka lahaa waa urur guriga hal iibiyo lacagta baahida bulshada ku habboon looga faa'iideeyo barakacayaasha lagu caawiyo ururka loo sameeyo center weyn oo dadka lagu baaro
waayo waxaa jirta siyaasadda dhaqaalaha qoran baa describe garanaysa cidda markaa maamulka haysa xilligaa joogtana su-aalaha shirweynaha lagu weydiin doono waxaa ka mid ah hantidaad iibiseen xaggaad geyseen lacagteedii marka waa in iska basriyaan oo si fiican qurxiyaan waxaas oo dhan marka ururku shalseel wuu iibin karaa donate cid buu ugu caawin karaa exchange isku bedel buu samayn karaa marka hantidiisa ururku halkaa qodobkaas adigu muhiimad alnihaaya qodobka waxaa loola jeedaa ururka hantidiisa u iibin karaa cid buu ugu deeqi karaa waxbuu ku kala bedelan karaa taana uu samayn karayaa waa qodob isna la samayn karo waxaa jira wax loo yaqaano dissolution kala dirista ururka in ururka la kala diro macnaheedu in la baabi'iyo yani in ururka lasoo terminate gareeyo oo xubnaha ururku ay isla qaataan in ururka la terminate gareeyo marka muxuu ku iman kartaa haddaba sidaba urur loo baabi'iyaa ururka TTG la yidhaahdo shall only be dissolved by waxaa lagu baabi'in karaa ama lagu kala diri karaa by a joint decision go-aan cad oo midaysan oo la wada gaadho ay sameeyaan by the General Assembly golihii guud board directorskii maxay executive directorkii agaasimihii and the management team cidba kama maqan meeshii cid allaale cid ka maqan ma jirto all the members waa la soo wada imanayaa marka dadka isu imanayaa baa la yidhi marka tir ahaan la eegana xubnihii guud ee ururka 3 meelood oo 2 meelood $3 $2 waa meesha joogaan of all delegates present waa inay joogaan dadkii markaa uu fuudaha if less than hadduu ka yaraada baa la yidhi xubnuhu ka yaraadaan $3 $2 the vote shall not be passed codka ururka lagu kala diraya ma ansaxayo ama ma noqonayo mid markaa ansaxa ama ansax gala without regarding the outcome wixii ka soo baxay shirkaasna is not considered oo baabiinta ururka in ururka la baabiyo that's all halkaa iyadana qodobkaasina halkaas waa qodobka dissolution kale qodobka 12 article 12ka wuxuu weeyaan inta badan dee in ururka la baabiyo iyo sifa lagu baabiin karo interpretation of the constitution horta waa aniga hore u soo sheegay oo dastuurka wax ka bedela dastuurka waxa wax ka bedela oo change ku sameeya waa GA boardka iyo dadkaasi soo jeedin bay iska leeyihiin